madrasada Imaam Shaafici oo kamid ah madrasadaha ugu daada weyn ee degmada Woodward ayaa qabatay kulan ay ku qalin jabinayeen qablo gaadhaya 4 oo markaasi dhameystay Quraanka Kariimka xafladan waxa ka soo qayb galay culimada deegaanka Woodward wax garadka hooyooyinka iyo waalidiinta kala duwan ee degmada iyagoo aad ugu mahad celiyay Sheekh Saciid oo ah baraha madrasadan oo markaasi waqti fara badan ku bixiyay inuu soo saaro arday fara badan oo madaqadani sool sanaag iyo caynay khaatimo ka gashay kaalmaha ugu horeeya dhinaca Quraanka haatanna ah barayaal iyo dad mutacallimiin ah maantana waa dufcadii ugu badnayd ee gabdhaha ee markaliya ka qalin jabiya madrasadan iyada ay xafladeedii isugu nimi madrasadan iyada walaalayaal sida aad ogsoontihiin dhismaheedan ay hadda wax ku dhigano dumar baa dhisay dumarka dhisay waxa weeye waa ururka misbaax baa dhisay iyadoo cariisha buu ka bedelay wuxuu ka dhigay daarta faa'iidada faraha badan leh roobabkii iyo dhaxantii iyo wixii oo dhan ba lagaga dhuuntay waxa weeye inaguna tiibaynu maanta manaafacadsana haddaba waxaan anigoo macallinkii madrasada idin soo gudbinaya uga faa'iideysanaya jaaniskan isaga ee ducada ee loogu duceynayo gabdhaha iyaga qalin jabiyay aynu ugu duceynayna aynu isugu nimi ducada gabdhaha aynu duceyno yar ee aad arki doontaan insha Allah ta'ala iyo quraanka sida ay u garanayaan waxaan uga faa'iideysanayaa waalidiintu dawr sidaas kuma leh maamad waxa weeye ilmaha maalinta ay keenaan baa ugu dambaysa haddii ay ugu badato hal qof oo dumar ah ku iimaanay marka xigtana waxaan mahad u soo jeedinayaa macallinka madrasada iyo waalidiinta ka soo qayb gashay iyo culimada iyo ardada qiimaha badan ee inoo soo bandhigay diintii iyo quraankii ay baranayeen ayaan u mahad celinaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa waxay leedahay waa mahadnaq iyo duco loo duceynayo arday ka mid ah ardadan oo quraanka dhameysay waliba gabdhaha إلهي ما هدي بيتهاي بلو وحوي إلهي horta waxaynu uga baryaynaa ardayda quraanka dhameysay ee kutubta quraanka dhameysay ilaahay ku anfaco waalidiintoodii iyagaba inana waxaynu ilaahay ka baryaynaa kuweena madrasada dhigta iyo kuwa kale madrasadaha kala dhigtaaba inay sida uga qalin jabiyaan qowlka ilaahay oo qaali ah oo aakhire iyo adduunba inagana anfacaya iyagana anfacaya inaynu kula dadaalo oo aynu iska xisaarno أولادنا يرير ما دقوا وين وجود الله يعني القرآن يدين توجود الله. لسه كسورين شرتي دمر كنا حق بيقولوا هنا دين تبرتان إن العلم كبرتان إن كسر دوادان وياين كانوا وحنوش إن عرور تقول حق وما لها إن وحبرتان ويدا واللوجا هي هنا الدهر كي وحيابها كفى إذا استهدى المحدد الفري دمان وحنوش إن إسلام كستو شاهلة أما وحبا قون وحبرشودنا ينعيبها هاي. عن القرآن كدمي حفلة الله قبنا يو هدان شلقوا مقعيده ده وحوي استر عبد الله برخدله فهيمة حرير محمد ميمون عبد الرحمن محمود ينجمة حرير محمد أفرتا قبضات وقرآن كإله سبحانه وتعالى دميي هذا وحن لنا هاي قرآنكم إنتاكم دمي حفظ جيبا إدين هاي